howlgal lagu soo celinaya birada magaalada ayaa maanta laga bilaabay degmada Bursaalix gobolka Mudug. Howlgalkan ay fulinayaan maamulka gobolka Mudug oo kaashanaya saraakiisha ciidanka gobolka ayaa la sheegay mid laga fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Mudug. Kadib markii soo baxay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, shacabka degmada Bursaalix ayaa soo dhaweeyay howlgalka uu fulinaya maamulka gobolka. Gudoomiyaha degmada Galdogob kana mid ah guddiga horumarinta degmada Bursaalix ayaa Ahlan Faarax Maxamed taliyaha ciidanka daraawiisha gobolka Mudug Gaashaanle Cabdirashiid Ashkir iyo xildhibaan Cabdiweli ayaa shacabka ugu baaqan inay shaqeeyaan ciidamada ammaanka iyo guddiga hawsha wada. degmada Bursaalix tobankii oo ka bilowday waxaan u mahadcelinaynaa dadweynaha Bursaalix sida kalsoonida leh ee ay u caawinayaan ciidanka ka shaqeynaya wadooyinka iyo qalabkaba iyadoo ay ka soo arkeen dadkii magaalooyinka oo joogi jiray waa yaqaanaan wado haddana waxay la socdaan qof walba meeshu mari jiray aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin wada shaqeynta ay la shaqeynayaan dadka iyaga u shaqeynaya waxaan rabnaa jaaliyadda dibadda iyo dadka reer Puntland oo reer Bureed inay soo caawiyaan guddiga horumarinta degmada Bursaalix kharash badan baa baxaya shaqadu waxa laga yaabaa bil ay qaadato ma ahan wax moogtahay qof kaliya bixin karo waa la socotaan dawladda waa isku tashigiina waxa la rabaa qaybkiina inaad qaadataan dawladuna inta ciidanka intay kharash qabto iyo inta wax qabtana waa dareemaysaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan ku celsho wadadu inaga dannoota haddaan waxa inoo dana garan weynina haddii qofkii dantiisa garan waaya waa dantimooga maladuuga horteeda u dhammaadayo kale waxaan leeyahay ka qayb qaato waa sadaqa ku bixiya wadooyinkii baa la toosinayaa dantayadii oo dhammaan u soo xornay waxaan doonaynaa in Bursaalix wada hesho weyn dadka ku dhex jira dadka ee ka hadlaya waxyaalaha loo fadhiin aakhirana uma fiicna adduunkana uma fiicna hadda ay bulshada ka daayay qoqobka ay kala dhex gelinayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay dhulka miyaana idinka yeelin haddaa ku dhimataan iyo haddaa nooshiin mid idin deeqa arladu wayna deeqdaa jidad iyo buundooyin iyo wabiyaal iyo bado iyo jidad tareen iyo wax walba waa laga samayn karaa laakiin innagu inaynaan qabuura ka dhigin meeshaynu degannahay baa muhiim ah Bursaalix waxaan rabnaa inay noqoto meel furfuran oo magaalo ah oo magaalooyinka ka mid ah sumcadda leh ee quruxda badan marka arrintaas innagoo dadaal muujinayno waxa la rabaa inaynu ka wada qayb qaadano dhammaanteen dal iyo dibad meel kastaba aynu joogno waxaanu joognaa Bursaalix oo u jeedaan horumarka iyo wadooyinka iyo waxa loo sameeyo waxaan ka shaqeynaa wax way waxa deegaanka dantiisa ah deegaanku wuxuu u baahan yahay wado saddexda arigi waaga hore loo digi jiray Bursaalix ma anfacayso degmay noqotay waxay u baahan tahay in wadooyin sax loo sameeyo qofkii kulaha 20 mitir oo 4 mitir oo hadho 40 mitir baa uga qayb badanaysa 20 mitir uga qayb badanaysa Bursaalix aad iyo aad u wanaagsantiin gudoomiyaha gobolka Mudug ahna gudoomiyaha guddiga bil soo celinta gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa sheegay in howlgalka laga fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Mudug inaan gobolka oo dhan wax ka qabanno oo hadda Bursaalix aan gacanta ku hayno in aan ku xijin xarfo baadweyn iyo jiriiba haddii alla idmo dawladdu waa isku tashi waad ogtihiin sida hore loo sheegay dawladda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dawladduba howlgalkan ku amreen ayaga magaranaysaa leh amarka dadkuna wuxuu leeyahay isku tashi degmada Bursaalix ayaa ka mid ah degmooyin dhowr ah oo dhawaan u magacaabay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Xuseen Ahmed Faarax Daari Star TV Bursaalix.